hadda idinkaa qalinka haysta qalinka idinku gacantiida kuu jiraa waxaan idinka codsanayaa codkiina waxaan ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan waxaana ka shaqayn doonaa baarlamaan sharaf leh oo karaamo leh oo dadnimo leh oo xuquuqdiisa haysta inuu waddankan ka yimaado yaad u lahayd madaxweynaha 2021 waa halkudhigga tartanka dhexeeya musharaxiin la filayo inay isku taagaan doorashada la filayo inay dhacdo sanadka soo socda bilowgiisa shabakada xaldoon ayaa barteeda Facebook ku tartansiisay musharaxiin dhowr iyadoo ay gunaanadkii isku soo hareen madaxweynaha hadda talada haya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame codaynta oo socotay 48 saacadood ayna codeeyeen in ka badan 11,000 oo cod bixiye waxa ay guushu ku raacday hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isku geynta tirada guud ee cod bixiyayaasha ayaa ka dhigan in boqolkiiba 51 cod uu helay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame madaxweyne farmaajo oo ka hor doorashadii 8 February ku lahaa baraha bulshada taageerayaal fara badan ayaa u muuqda mid ay garabkiisa ka baxeen waxayna dadka falanqeeya siyaasadda arrintan ku tilmaameen jab weyn oo madaxweynaha ka soo gaaray dhanka baraha bulshada waxa maanta aan meeshaan u taaganahay aniga rag ila midka waa hoggaanka dalka diinteena hoggaanka dalka waxay u leedahay marjic iyo reference ay u leedahay hadda ka hor nabi yuusuf ayir ij'alni ala khasaa'il al-ardi inni xafiidun caliim wuxuu sheegtay laba sifood oo ah waxna waa xifdiyaa aqoonna waan leeyahay macnaheedu amaano iyo xifdi labadaba waa leeyahay ayuu sheegtay gabadhiina waxay tiri markii aabeel hadlaysay nabi muuse ka waramaysa waxay tiri istajirhu inna khayra man istajarta al-qawiy al-amin